waxaa nooga muuqata fursad weyn ayaa noo muuqata in weli Chance maalgashi iyo trade intaba u furan yahay. soo dhawaada saaxiibayaal, kusoo dhawaada kobciya crypto forum. waxaan isla fiiri doonaa barnaamijkeeni daily update. haddii aan ka bilowno lacagta ku jirta suuqa sida ujeedaan waa 3,729 bilyan 764 milyan. sidoo kale 24 saac u dambeysay suuqa waxaa soo gashay 133 bilyan ayaa soo gashay. BTC haddaan fiirino 104,000 ayay ordaysaa. Ethereum 3,298, XRP $3.12, Solana 248. sidoo kale haddaan fiirino dhinaca iyo Fear and Greed-ka wuxuu marayaa 75 ayuu marayaa. shalay wuxuu ahaa 75, last week wuxuu ku xirmay 77, last month wuxuu ku xirmay 79. markaan ka tusaale qaadano maalmihii u dambeeyay isbuuc iyo bishii u dambeeyay Fear and Greed-ka sentimentiga dadka wuxuu noo cadeynayaa dadku inay ahaayeen greedy oo aysan jirin wax cabsi ama wax fear aysan jirin. sidoo kale haddaan fiirino crypto bubbliska weekliga sida ujeedaan coinanka inta badan waa guduud ama minuska ayaa ku badan, qaarkood -30, -20, -15, -10 ayay ku jiraan. sidoo kale meesha waxaa nooga muuqata fursad weyn ayaa noo muuqata in weli Chance maalgashi iyo trade intaba oo weliba swing trade u furan yahay. sidoo kale haddaan fiirino dhinaca iyo dailiga minuska ayaa kusii badan oo coinanku inta badan correction ayay ku jiraan. sidoo kale haddaan fiirino 1 hour-ka oo kale hoogaa waa kacsan yahay, coinanka qaar 1%, 2% ayay bixinayaan. inta badan coinkan XCN ayaa u kacsan oo 8.3% kacay. haddaan fiirno dhinaca iyo economic indicatorska sida ujeedaan maanta wax news ah ma jiraan oo dadku waxay ku jiraan fasax ama weekend ayay ku jiraan. haddii aan fiirno dhinaca iyo technicalka bitcoinka chartida haddaan fiirino sida ujeedaan BTC-da markii ay samaysay dhaqaaqi weynaa ee doorashada Mareykanka u dhacay oo ilaa 180,000 ay tagtay oo la soo celisay. waxaa lagu soo celiyay 92,000 ayaa lagu soo celisay kadib dhaaqa dambe 89,000. mufki dambena waxay jebisay all time high ugu horeeyay oo ahaa 108,000. sidaas ayay ku tagtay 109,000. sidoo kale waxay samaysay nasiiro kale ayay samaysay. haddaba markaan fiirino meeshan waxaa ku jira level baa ku jira. haddii marka maaragtay lasoo daadiyo mar kale levelkaas 102,000 inay ixtiraamto ilaa 101,000 ay u badan tahay. haddiise hadda sidaan u jeedno ay maaragtay isku diyaarisay inay jabiso dhaqaaqaada u dambeysay oo ay samaysto new all time high-ga ilaa iyo 115,000 ayaan ka sugaynaa. haddii laakiin nasiinada xoogaan ugu dheeraato ilaa iyo 102,000 aagaas ayaan ka sugi doonaa. sidoo kale waxaan ujeednaa levelka inuu yahay levelka hadda u dambeeyey oo dhowr mar laga celshay. waa level aad u adag. haddii aan indicators ku fiirino tusaale ahaan RSI wuxuu marayaa sida ujeedaan 60 ayuu marayaa oo ilaa hadda waxaan u jeednaa in buy xoogan uu jiro. haddaan fiirino Gaussian channelka haddaan fiirino sida ujeedaan weli buy xoogan ayaan arki karnaa. sidoo kale waxaan fiiri doonaa moving average haddaan fiirino EMA-ga haddaan fiirino sida ujeedaan labadan number waa 200-ka iyo 100-ka waaye. still suuqa waxay ku yihiin support. Gaussian channelkan wuxuu ku ahaa support ayuu ku ahaa. waxyaabahaas oo dhan markaan fiirino inay BTC weli uptrend tahay ayaan arki karnaa. adigana taxliilintaada ku darso. si guud suuqa mar walba Chance ayuu bixinayaa maadaama suuqu soo nastay u dhaqaaqay, haddana wuxuu ku jiraa correction ayuu ku jiraa maadaama BTC-du ay aaggan kor noqonayso. marka si guud suuqa indhaha lagu hayo fursado badan ayuu bixinayaa.